afarta madhab oo maanta aad iyo aad loo xujaysto madhabka abu xaniifa iyo imaam malik imaamu shaafici axmed ibnu xambal afarta madhab oo afartaas aad iyo aad bay dadku ugu tacasubaan ugu dhagaan laakiin culamadaas hadalladoodii waxaa kamid ahay in hadalkooda xoog la saarin abu xaniifa wuxuu leeyahay idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi xadiiskoodu sax noqdo waa madhabkeyga laa yaxilu liaxadin an ya'kuda biqowlina maa lam yaclam min ayna akhadnah qofna xalaal uma ahan inuu qaato hadalkayna ou ictimaado ou go-aan ka dhigto maa lam yaclam intuusa ogaani min ayna akhadna xagaan ka keena hadalkaan mar kale wuxuu leeyahy xaraamun calaa man lam yacrif daliilii an yuftiya bikalaamii xaaraan bay ka tahay qofkaana garanayn daliilkayga meeshaan ka keensaday inuu fatwaan hadalkayga u keensado xaaraan bay ka tahay xaaraan bay ka tahay wahaakadaa imaamu malik isaguna wuxuu leeyahay ana basharun ukhdi'u wa usiib waxaan ahay bashar waana gaf waa gala waana asiiba fanduruu fii ra'yi ra'yigii bal eega fakulu maa waafaqa alkitaab wasunna fakhuduuh wixii waafaqa kitaabkii sunnada qaata wakulu maa lam yuwaafiq alkitaab wasunna fatrukuuh waxa aan waafiqin oo khilaafa kitaabkii sunnadana ka taga waa kaas isagana imaam malik imaamu shaafici wuxuu leeyahay hadal asigana aad iyo aad u cajiib ah oo aad iyo aad u cajiib ah idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi sidoo kaasna laga hayaa wuxuu leeyahay idaa ra'aytumuunii aqulu qowla waqad saxa can annabiy khilaafuh faaclamuu ana caqli qad dahab haddaa aragtaan anoo dhahaay hadal ayna ka waqad saxa can annabiy khilaafuh hadalkaasna ou nabiga ka sugnaato war khilaafsan oo nabiga xaggiisa hadal sax oo kala ka aragtaan ogaada caqligii inuu tegay oo warkayga ha qadanina waa warkayga ha ictimaadinina mar kale wuxuu ley idaa wajadtum fi kitaabi khilaafa sunati rasuuli illah faquluu bisunati rasuuli illah wadacuu maa qult haddaad aragtaan kitaabkayga wax khilaafsan sunnada nabiga haddaad ku dhex aragtaan sunnadayga nabiga qaata teydana ka taga sidoo kale axmed ibnu xambal imaamka weynka ahaa wuxuu leeyahy laa tuqaliduunii ha igu daysaanin aniga walaa tuqalid malikan walaa shaaficiy walaa awsaaciy wala thawriy wakhud min xaytu akhaduu ha ku daysanin oo taqliid ha ka dhiganin malik imaam shaafici iyo awsaaci iyo thawri kaas ka qaado meeshay ka qaateen marka laa tuqalid diinaka axada min haa-ulaa oo aad diintaada taqliid ha ugu dhigin oo hawga ka qaadan oo haka dhaqan haka dhiganin ayaga inaad ka qaadato ee kasoo qaado meeshay kasoo qaateen